السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحاد يا عافيمات ما ياندين رجينا يا والله شرفت بدن هواك اوفا ستيموليشن كان شدada dareenka iskaga jabiyaan xilli ay ku jiraan xaaladda guurka. raggu dambi ma ku yeelanayaan qaba haweenkaas haddii haweenaydu qaab kale dareenka ay iskaga jabiso? biyaha dareenka lagu jabinayo ee liindhanaantu sidee bay suuragal u yihiin? ma wax caqli galaba, ma wax jiraba, ma wax beenaba? arrintaas aynu insha Allah muuqaalka kaga hadlaynaa. biyaha liindhanaanta marka laga hadlayo waa aashito aad u kulul, waxaanay waxyeello u geystaan maqaarka iyo dubka sare iyo neerfisyada ama dareen wadayaasha iyo dhambaalsidayaasha. haweenka qaar baa waxa ay ku tuujiyaan xubinkooda taranka iyaga oo dilaya neerfisyada ama dareen wadayaasha xubinka taranka dul saaran si dareenku meesha uga suulo. haween kale ayaa waxa ay isticmaalaan inay qaab macmal isku dareenka iskaga jabiyaan iyagoo xubinkooda wax gelinaya. qaar ayaa maskaxda iyo fikirka dareenku ka imanayo iyaguna iska bowskareeya oo maskaxda fariimaha ka imanaya bedela oo qaab kale u bedela. kuwa kale ayaa dhinaca nafaqada iyo cuntada ay qaadanayaan ee dareenka ay u maleynayaan inay ku keenayso iska joojiya. waxa kaloo jira iyaguna haween kale oo mashquulka badiya, jidhkana daaliya, maskaxdana daaliya si markaas aanay dareen jidhkooda ugu dhicin ama aanay u dareemin hamad iyo shahwad qabata oo ay nin ugu baahdaan. wadiiqooyin kala duwan ayay maraan haweenku marka ay doonayaan inay dareenka iska jabiyaan. haddaba aashitada liindhanaanta haweenku xubinka taranka ay ku shubaan ama ay ku tuujiyaan waxaa la ogaaday marka caafimaadku ka daba tegay rikoodhada caafimaadka ee konsolinka dhakhaatiirta la sameeyo dumarka qaabka ay dareenka iskaga jabiyaan inay qayb ka mid noqotay. laba ujeeday aala u isticmaalaan waa maray fungus iyo infection iskaga daweynayaan oo xubinkooda taranka ay taabsiinayaan iyo mar neerfisyadaas ay doonayaan inay ku dhaawacaan. dhakhaatiirtu labada arrimoodba waa in aad iyo aad u adag iyo digniinta ugu adag bay ka soo saaraan, waana qaabka ugu basarka xun uguna halista badan ee dumarku dareenka ay iskaga jabiyaan. waxa ay keentaan dhibaato caafimaad oo aanay mahadin, waxaanay haweeneyda ku keentaan in xubinkeeda taranka ay dhaawacdo, inay wax ugu darta iska daayo dareen wadayaasha iyo xubinka tarankaba inay booga ku samayso. lagumana shubi karo biyaha liindhanaanta maqaarka, xubnaha jilicsan intaba lama taabsiyo. waxay ku samaysaa inay caadi u dhaawacdo oo nabar caadi ay ku samayso aashitadaas liindhanaantu haddii goobaha jilicsan iyo maqaarka la taabsiiyo. markaa farsamadaasi iyadoo marka hore farsamo qaldan ay ahayd, haddana waa farsamo dhibaato caafimaad oo aad u weyn u keenta haweenka. dhinaca kale ragga haweenka qabaa inay dareenka ay ka jabiyaan, dhakhaatiirtu aad bay arrintaa u booriyaan oo ninku haweeneyda iyo xaaska uu qabo dareenka inuu ka jabiyo oo si fiican u baahi tiro waa mid dhakhaatiirta qoysku ay aad iyo aad u xoojiyaan. haddii laakiin haweeneyda ninka uu dareenka ka jabin waayo oo si fiican ay u raaxaysan weydo, option kale ayay dhakhaatiirtu siiyaan oo iyagu markaas aan dhibaato haweeneyda u geysanaynin, ama waddo kale ayay markaa u tilmaamaan oo ninka inay markaa haweeneydu ay u sheegto inaanu dareenkeedu jabin si ninka markaa wax looga bedelo oo ninka sababta daciifnimada ku keentay loo dabagalo oo nafaqadii iyo awoodayntii ninka xoogga la saaro si ninku markaa uu noqdo mid tamar fiican u leh oo xaaskiisa dareenka ka jabin kara. intaas ayaa xalku u yahay. inahaas ayaan ku soo ururinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.